socod hoosha isku diyaarinta safarkeyga Sacuudiga waa markii ugu horeysay ee aan tagayo wadamo badan ayaa ii qorsheysnaa oo team 27 ay joogan in aan tago oo ay kamid tahay Turkey ay kamid tahay Masar iyo weliba meesha hadda aan u socdo Sacuudiga waxaan sugi lahay in aan arko hooyadeeda oo igu dambeysay 23 sano aan arkin ayaa isugeysa aabahaygu asagana 20 sano aan is arkin ayaa isugaya Abaay Fardoos Xaajiyo oo 30 sano aan is arkin oh my god waa qofta ugu badan ee aan is arkin macnaha anoo yar ay baxdo aad u yar oo aan muuqeed xitaa weligay aan arkin laakiin telephone iyo video call aan iska hadalnay sidoo kale Jiji Xaajiyo oo kamid ah idane dadka 25 sano ka badan aanan is arkin waxa kamid ah Leila Xaajiyo oo idana oh my god waa iloowe Leila waxay ugu dambeysay 10 sano ka hor mar ay Malaysia ay u maaday waxa kale oo ku xigta Najm Xaajiyo iyadana oo sidoo kale 20 sano aan ismooganaay abay xiisa iyo xamaasada waa iska dareemi kartid Xaajiyo wuxuu sheegay hal arin iga yaabisay arintaas oo ah walaashiis inay 30 sano ay is arkin bal adiga hadda oo fiilan daawanayo gabadha ku lalatay ama familkaaga qofka ugu badan oo dhowr sano aan is arkin waxaan rajeynayaa inaad hoos nagu soo qorto aad nala wadaagto sababta oo sababtay in intaas is arki weyseen dabcan arintan dad badan waa way ka yaabeen reer comments yani inay familkiis intaas oo sano is arki waayeen kolba ma aqaan wax sababay oo ilaa intaas oo sano isku arki waayay waayo familkii way imaan kareen meesha asha joogo dabcan asigana mar hore uu imaan karin meesha ay ka joogaan adiga qof aad u xiistay oo isdhigi karto oo weliba sida oo yani aanan arkin oo dhowr sanana il aasaanin bal hoos commenti noogu soo qor xarjana muuqaalkan inaa share gareyso aad nala wadaagto fikirkaaga oo ah qof aad u xiistay oo in badan oo dhowr sano aad kala maqantiin ilaa haddana aad kala maqantiin oo aad rajeynaysa inaad kadib is aragtaan waxaa jeclaana inaad commenti noogu soo qortaan muuqaalka haddii aad ilasta ka cusub inaad share noo dhahdo comment qurux badan aad ka bixiso waana mahadsantahay